Challenge-gana maanta waxa uu ku saabsan yahay gabadhan oo lagu magacaabo Ashley iyo 60 nin oo hore isku soo shukaansadeen oo qofkii ugu dambeeyay soo hadhan waxa ku guuleysanaya lacagta $250,000. Ragganna waxa laga rabaa inay gabadha qalbigeeda hantaan oo ay soo jiitaan. Waqtiga ay haystaan waa 26 maalmood. 5 maalmood oo kamid marka laga soo wareegana Ashley waxa loo ogolaan doonaa inay nimanka mid kamid ay saarto oo xaafadoodii ay u dirto. Ninka ugu dambeeya soo hadhana waxa fursad loo siin doonaa inuu lacagta keligii u qaato amba inuu Ashley isagoo ay kala qaybsadaan. Halkaas waxa loogu diyaariyay wax kastoo ay u baahnaayeen iyo meelaha ay seexan lahaayeen. Dhammaantoodna waxa loo wada sheegayaa shuruudaha ciyaarta oo ahayd intii hore aan idigu soo sheegay. Isku dayna inaad muuqaalka aad leeg saartid, hana ilaawin inaad nagu soo biirto. Sidaasna waxa uu bilaabmay challenge-gii. Maantana waxay noqonaysaa maalintii koowaad. Sidaad wada arkaysaan, nin kasta waxa uu rabaa inuu ka soo agdhowaado iyada oo uu sasabto. Sidaas ayaanu gobolkii ku dhacayaa oo qof kastana waxa uu tegayaa gobashiisa. Waxaana bilaabmaysa maalintii labaad. Mr. Beast-na halkan ayaa ay wax kasta ka daawanayaan. Gabadhana dabadda ayaa ay u soo baxaysaa oo ninkan ayaa iskala sheekaysanaysaa. Ninkanna waxa uu ka mid ahaa in ay hore isku soo shukaansadeen. Gabadhana nin kasta waqti ayaa ay la qaadanaysaa oo waxay tijaabinaysaa inay raggan weli isbedeleen amba ay weli sidoodii yihiin oo waxa iska dhisanayaan meelo ay ku nastaan oo waxa soo booqanaya Mr. Beast oo waxa uu wareysanayaa gabadhan. Waxaanu weydiinayaa maanta jawigu siduu ahaa, iyaduna waxay odhanaysaa waa uu iska fiicnaa. Halkaas ayaanay ku dhammaanaysaa maalinteennii labaad oo waxa loo gudbayaa maalintii saddexaad. Sidii caadada ahayd, qof kasta dabadda ayaa uu soo baxaya oo dhammaantood halkaas ayay wada fadhiisanayaan. Xariifkana gabadha ayaa uu gift u keenaya oo markay rabto aad ayay ugu farxaysaa oo waa ay xidhanaysaa. Halkaas ayaanay kusoo dhammaanaysaa maalintii saddexaad oo waxa loo gudbayaa maalintii afraad. Mr. Beast-na halkan ayaa ay wax kasta kala socdaan oo waxaa ka hadhay maalintii qof la saari lahaa hal maalin oo keliya oo gabadhanna waxay ka warwaraysaa qofkii ay saari lahayd. Nin kastana waa uu ka soo og dhowaanayaa oo waxa uu isleeyahay beri adiga yaana lagu saarin. Sidaas ayaanu gobolka ku dhacayaa oo raggan weli maabay seexan oo waxay isleeyihiin sii shukaansaday intaa oo iska sii dhaadhiciyaa. Sidaas ayaanay ku dhammaanaysaa maalintii afraad oo waxaa loo gudbayaa maalintii shanaad. Maalintan waa maalintii ay 60 nin midkood saari lahayd oo waa ay ka saaraysaa challenge-ga amba tartanka. Waxaana loo sheegayaa qof kastay dooratay inuu sidaas uu challenge uga hadhayo. Waxaana loo dhiibayaa dubahaas oo waxa lagu odhanayaa waa inaad jebisaa mid ka mida loofafkaas. iyaduna waqti dheerba fikri mayso oo midka loofkiisa ayaa ay jebinaysaa. Sidaas ayaanu challenge uga hadhayaa oo waa la qaadayaa. Challenge-gana waxa isku soo hadhaya 5 nin iyo gabadhaas oo waxa dhammaanaysa maalintii shanaad. Waxaana loo gudbayaa maalintii lixaad. Dhammaantoodba dabadda ayaa ay soo wada fadhiisanayaan oo halkaas ayaa ay waqti ku wada qaadanayaan oo waa la wada sheekaysanayaa oo gabadhan ragga waxay ku odhanaysaa tartan ayaa idii qabanaya ee wada orda. iyada ayaana siidhiga u haynaysaa. waqti badanba qaadan mayso oo xariifka madowga ah ayaa sidaas ku guuleysanaya. waxaana loo gudbayaa maalintii 7aad. ogsoonow hadda waxa lagu jiraa maalintii 7aad. gabadha ragga waxay u sheegaysaa inay tartan kale u qabanayso oo ay soo diyaariyaan. waxaana u sheegaysaa ninka ugu horshiday inuu guuleystay oo midkan koofiyadda xidhan ayaana ugu horshidaya. sidaas ayaanu ku guuleystay. habeennimadii 7aadna halkaas ayaa waqti lagu wada qaadanaya oo dhammaantood halkaas ayaa ay ku wada caweynayaan. waxaana loo gudbayaa maalintii 8aad. subaxdii marka ay soo kacaan waxay bilaabayaan inay quraac diyaarsadaan. gabadhan ninkan ayaa ay iska soo ag fadhiisanaysaa oo halkaas ayaa ay kula sheekaysanaysaa. waxaana loo gudbayaa maalintii 9aad oo maanta waxa uu imanaya tiimka Chandler iyo Nolan. waxaana u sheegayaan inay u hayaan sabarays wali ah. waxaana laga kaxayn doonaa jasiiradan oo waxa la geyn doonaa jasiirad kale oo loo sii diyaariyey oo waxa qaadaysa doontan. waxaana la geenayaa jasiiradan. challenge-gana waxa lagu qaban doonaa jasiiradan oo inta aan la gaadhin maalinta 10aad raggan waxa la sii marin doonaa challenge. guuleystahana waxa uu waqti la qaadan doonaa gabadhan. waxaana loo sii diyaariyay meelo ay seexdaan iyo meelo ay cunto ku cunaan oo VIP-ya. guuleystuhuna waxa uu noqon doonaa ninka ugu soo horeeya ee challenge-ga kasoo gudba. 4 nina kalena waxa lagu celin doonaa jasiiradii oo 2 qof oo keliya ayaa jasiiradan lagu reebi doonaa oo ah ninka guuleysta iyo Ashley. steebka koowaad waa inay furaha ciidda ka soo saaraan kadibna ay qufulka ku furaan oo ay meesha jebiyaan. ugu dambayntana ay dhagaxa riixaan. 5 ninna waxa lagu odhanayaa soo diyaariya oo garamadahan ayaa ay xidhanayaan si loo kala garto. hal mar ayaa lagu odhan
odhanayaa bilaaba. nin kastana wuxuu isku dayaa inuu furaha ciidda uu ka soo saaro. wakhti badanba iyadoon qaadan ayaa uu ninka madowga helayaa, waxaanu isku dayaa inuu qufulkaa ku faro, waxaana ku xigaya ninkan kale oo xidhan garamadan jaallaha. ugu dambayntana waa uu furayaa, waxaanu isku dayaa inuu dubaha meesha ku jebiyo. saddexdanna weli waxay raadinayaan furihii oo weli maanay helin. ninkanna mar kale ayaa uga soo hormaraya dhagaxii oo waa uu riixayaa, ninkan ayaana ugu soo dhow. xariifkanna kamaba qasna oo dhagaxa aayar ayaa uu iska wadaa, laakiin mar dambe ayaa uu ogaanaya xariifkii kale inuu soo dhow yahay. chaalenjiganna waxaa looga baahan yahay hal qof oo keliya oo afarta kale waa ay hadhayaan. ninkan ayaana keenaya meeshii looga baahnaa, afarta kalena sidaas ayaa ay ku guuldaraysteen oo waxaa lagu celinayaa jasiiradii hore ay u joogeen. xariifkanna waa loo hambalyeenayaa, afartii kalena sidaas ayaa ay ku guuldaraysteen. dib ayaana loo celinayaa oo labadooda keliya ayaa jasiiradda ku soo hadhaya. habeennimadiina halkaas ayaa ay ku wada sheekaysanayaan, waxaana loo keenayaa casho VIP oo masaajeys ayaa loo samaynayaa. xarfaantii kalena halkan ayaabay casho kusii samaysanayeen, qaarkoodna waa ay murugaysan yihiin. oo maalintii sagaalaad sidaas ayay ku dhammaanaysaa, waxaana loo gudbaya maalintii 10aad. maalintanna waa maalintii hal qof la saari lahaa, kuwanna halkan ayaabay cunto ku cunayaan. intaas kadibna jasiiradda waa laga soo kaxaynayaa oo waxaa la keenayaa meeshii lagu kala saari lahaa tartamayaasha. gabadhanna wakhti badanba fikri mayso oo midkan loofkiisa ayaa ay sidaas ku jebinaysaa oo sidaas ayaanu challenge uga baxay. ninkanna markiisa ayaa doonta la saarayaa, sidaas ayaana lagu macasalaamaynayaa. maalin kastoo ay ka soo gudbaanna waxay ku guulaysanayaan $1,000 oo sidaas ayaana lacagtooda laiskugu geynayaa. waxaana loo gudbayaa maalintii 11aad. kuwanna waxay iska dhisanayaan meelo ay ku nastaan oo maalintoodii 11aadna iyagoon wax badan aan qaban ayaa ay sidaas ku dhammaanaysaa. waxaana loo gudbayaa maalintii 12aad oo maalintoodan 12aadna waxay ku bilaabmaysaa iyagoo soo kalluumaysanaya, kadibna waxay ku soo noqonayaan hoygoodii. waxay soo qabsadeenna halkaas ayaay ku wada cunayaan. maalintoodii 13aadna sidaas ayaa ay ku bilaabmaysaa. gabartanna halkaas ayaa ay jimicsi kusoo samaynaysaa, kadibna waa ay soo noqonaysaa oo maalintoodii 13aad iyagoon waxba aan qaban ayaa ay sidaas ku dhammaanaysaa. sidaasna waxaa loogu gudbayaa maalintii 14aad. maantana waxaa soo booqanaya Mr. Beast, dhammaantoodna waa lasoo wada kaxaynaya oo waxaa la saaraya doontan. markan kalena waxaa la keenayaa jasiiradan oo waxaa laga rabaa inay loofka isu hagaajiyaan oo kartoomaday ku samayn lahaayeen waxay ku jiraan biyaha. waxaa laga rabaa inay dabadda u soo saaraan kadibna ay sameeyaan. waxaana lagu odhanayaa istiyaariya. hal mar ayaana la wada fasaxayaa, waxaana isku wada dayaya inay soo wada qaadaan kartoomadaas. nin kastana waxa uu isku dayayaa inuu ka soo hormaro midka kale. ragga qaarkoodna kuwa hore ayaa ay soo qaadayaan, kuwa kalena kuwa dambe. nin kastana 3 caag ayaa uu leeyahay, waxaana laga rabaa inuu dabadda u soo saaro kadibna uu isku hagaajiyo. ragga qaar 2 caag ayaa ay dabadda u soo saarayaan, waxaana bilaabaya inay hagaajiyaan. halkaa nin unbaa soo saaray 3 caag oo waxaa looga baahan yahay inay 3daba dabadda u soo saaraan kadibna ay hagaajiyaan. mid kastoo iyaga ka midana waxa uu doonaya inuu wakhti yar uu ku dhammeeyo oo midkan ayaana si fudud ku dhammaynaya oo meeshii lagu talagalay ayaa uu soo saarayaa. sidaas ayaanu ku guulaystay. maantana waa maalintii 15aad oo qof ayaa la saaraya, laakiin ninkan lama saari karo sababtoo ah challenge imkii isaga ayaa ku guulaystay. 3da qofka kale midkood waa inay saartaa, iyaduna fikri mayso oo midkan ayaa ay si fudud challenge uga saaraysaa. sidaas ayaanu challenge uga hadhay. sidaas ayaana lagu macasalaamaynayaa oo doonta ayaa la saarayaa. sidaas ayaana kusoo dhammaanaysaa maalinteennii 15aad oo waxaa loo gudbayaa maalintii 16aad oo gabadhan subaxda hore markay soo toostaba iyadoo murugoonaysa ayaa ay soo toosaysaa. dhammaantoodna waa ay soo wada ag fadhiisanayaan oo halkaas ayaa lagu wada quraacanayaa, waana la wada sheekaysanayaa. gabadhanna raggoo dhan waa iskaga wada dhex baxaysa oo keligeed ayaa meel tegaysaa. sidaas ayaanay ku dhammaanaysaa maalinteennii 16aad. gabadhanna ragga maalintaa jimicsi ayaa ku bilaabaysaa oo waxay ku odhanaysaa kaaligan wada jimicsanaaye oo 3doodiiba halkaas ayaa ay soo wada fadhiisinaysaa. maalintoodaasina sidaas ayaa ay kusoo dhammaanaysaa oo waxaa loo gudbaya maalintii 18aad. maalintooda 18aadna caajis ayaa ay ku dhammaysanayaan oo sidaas ayaa looga soo gudbaya maalintii 18aad. mid kastoo iyaga ka midana waxa uu ku dadaalayaa inuu wax kasta u qabto iyada. beritoolna waxaa la saari doonaa 3da qof mid ka mid ah oo sidaas ayaa xaafadoodii lagu diri doonaa. sidaas ayaanu gobolkii ku dhacayaa oo waxaa la gaadhayaa waqti habeennimo. sidaas ayaanay ku bilaabmaysaa maalintii 20aad. maantana waa maalintii la kaxayn lahaa oo doontii ayaa u imanaysaa. meeshan ayaana challenge lagu qabanayaa oo waa badda bartamaheeda. qof kastana waxaa laga rabaa inuu caagga
halkaas ku istaago oo aanu ka dhicin. Xataa gabartu waa ay ku jirtaa, dhammaantoodba halkaas ayaa la wada istaajinayaa. wakhti ayaana loo qaban doonaa. qofkii ugu dambeeyna waxa uu ku guulaysan doonaa lacag 50,000 oo dollara oo wakhti badanba iyadoo aan socon ayaa uu ninkan ka dhacaya. sidaas ayaana challenge-ga looga reebay oo saddexdan kale ayaa isku soo hadhaya oo waxay saarnaanayaan muddo 20 daqiiqo ah oo waxay saarnaanayaan saacad iyo 30 daqiiqo oo kuwana doon ayaa loo keenaya si ay mawjado ugu soo tuurto. mawjadii koowaadna waxay ka tuuraysaa ninkan oo sidaas challenge uga hadhay. mawjadii kalena marka lasoo tuuro waxay ka tuuraysaa gabadhan oo sidaas ayaa ku guulaystay ninkaasi. waxaana ku guulaystay lacag 50,000 oo dollara oo gaarkiisa ayaa uu qaadanayaa. maantana waxaa la joogaa maalintii saddexdan nin midkood la saari lahaa oo waxaa soo hadhaya 2 nin oo keliya. gabadhanna si fudud waxay ku dooranaysaa ninkan oo ninkaas ayaa sidaas challenge uga saaraysaa oo sidaas ayaana lagu macasalaamaynayaa. sidaas ayaana kusoo dhammaanaysaa maalintii 20aad. gabadhanna ninkan ayaa marna la sheekaysanaysaa marna waabay la ciyaaraysaa oo maalmahoodii 22 iyo 23 si fudud ayaa ku dhaafaysaa oo waxaa loo gudbayaa maalintii 24aad. gabadhanna caleemaha dhirta ayaa ka samaysanaysaa waxay ku nasato. gabadhanna ninkan ayaa markasta u dhowdahay oo maba arkaysi ninka kaloo ay isla joogaan. gobolkii ayaana sidaas ku dhacaya oo waxaa la gaadhayaa wakhti habeennimo. saddexdoodiina halkaas ayaa soo wada fadhiisanayaan sababtoo ah beritoole qof ayaa la saari doonaa. waxaana la gaadhayaa maalintii 25aad. caawadanna waxa uu imanaya Mr. Beast waxaana la keenayaa meeshii lagu kala saari lahaa 2 nin midkood. saddexdooduba waxaa lagu odhanayaa intaydan bilaabin waa inaad soo heshaan lacagtaasi meesha ay ku duugan tahay oo waa lacag 50,000 oo dollara. hadday soo helaanna waxaa lagu dari doonaa lacagtii hore u haysteen oo waxaa lagu odhanayaa waad bilaabi karaysaan. qof kastana waxa uu doonaya inuu labada kale ka hormaro. waxay u ordayaan xagga duurka oo waxay sitaan khariirad u tilmaamaysa xaggay lacagtu taallo. ugu dambayntana meeshan ayaa ay ka shikinayaan oo waa ay qodayaan. waxaana u suurtagelaysa inay lacagtii meesha ka soo saaraan. sidaas ayaana lacagtoodu u gaadhay 300,000 oo dollar. maxkamadii ayaana lagu soo wada noqonayaa oo saddexdii qof meeshii ayaa soo wada istaagayaan. gabadhanna in badan oo ay ka mermertay 2 nin midkood inay saarto. ugu dambaynta ninkan ayaa ay saaraysaa. sidaas ayaanu challenge uga hadhay. ninkan maadaama uu challenge soo joogay 25 cisho waxaa la siinayaa lacag 50,000 oo dollara oo gabadha meesha farxadba uma taallo. beritoole amba waa la saari doonaa amba waa la deyn doonaa. ninkanna habeenkao dhan maba seexanayo oo waxa uu ka fikirayaa beritoole waxa uu samayn lahaa. waxaana la gaadhayaa maalintii 26aad. meeshii lagu ballamay ayaana la imanayaa oo ninkan maanta waxa uu fursad u haystaa inuu Ashley lacagta la qaybsado amba inuu keligii qaato. ninkanna waxa uu go'aansanayaa inuu Ashley lacagta la qaybsado oo waa uu iska deenayaa inuu keligii qaato. halkaas ayaanu dibbiyi ku guubayaa.